dalka Shiinaha oo imika doonaya inuu xuduudiisa ciidan ku baaciyo badaha dunida ayaa gaaray guul naadir ah oo uu Mareykanka oo qurihi ku naaloonayay markabka diyaaradaha xambaara ee imika tijaabada ku jira ee Fujian ee Shiinaha ah oo noqday markabkii saddexaad ee Shiinaha ah ayaa waxa uu gaaray guul weyn kadib markii uu ku guuleystay tijaabada waxa loo yaqaano electromagnetic catapults oo ah laan cigaaleed danabaysan oo loo adeegsado in diyaaradaha lagu riixo marka ay ka duulayaan oogada kooban ee sare ee maraakiibta diyaaradaha xambaara waxaana markiiba lagu guuleystay in halka laga gano sidoo kale diyaaradii ugu horeysay ee Shiinaha ah isla markaana raadarka ka dhuumata oo ah noocyada loo qaabeeyay in ay maraakiibta dushooda ka haado waana J35 marka taa laga soo tagana waxa sidoo kale halka ka duulay J15T iyo diyaaradda kale ee sahanka ah digniinta horena bixisa ee loo yaqaano KJ600 iyadana uu Shiinuhu sameeyo aan sidoo kale Shiinuhu ku guuleysteen in saddexdan diyaaradoodba ay sidoo kale markabka ku degaan iyada oo loo adeegsanayo habka xarkaha diyaaradda lagu qabto ee loo yaqaano arrest landing sida uu ku warramay warqaadka CCTV ee dalkaas Shiinaha markabka Fujian oo sidoo kale kamid ah maraakiibta dunida ugu ballaaran maadaama uu barabixinayo ilaa 80,000 oo tan oo biyo ah ayaa imika qarka u saaran in toos loo howlgeliyo kadib markii lagu guuleystay hanaankan loo yaqaano tijaabada laan cigaaleedka danabaysan iyada oo la adeegsanayo hanaanka loo yaqaano electromagnetic aircraft launch system ama EMALS oo ah tiknolojiyad uu ilaa imika adeegsado dalka Mareykanka oo qura waxa sidoo kale uu Shiinuhu ku guuleystay in J35 ay noqoto diyaaradda labaad ee raadar ka dhuumata ee markab dusheeda laga gano marka laga soo tago midda ay farsamayso shirkadda Mareykanka ah ee Lockheed Martin ee F35 waxa ahayd markii koowaad ee diyaarad raadar ka dhuumata ee Shiinaha ah isla markaana loo qaabeeyay inay markab dushii ka duusha ay arrinta ku guuleysato diyaaradda koowaad ee raadar ka dhuumata ee Shiinuhu sameeyo waa J20 Mighty Dragon warqaadka CCTV oo imika arrintan sheegay ma aanu shaacinin xilliga ay tijaabadani dhacday marka si guud loo wada eegayo saddexda tijaabo ee dhacay balse waxa uu hoosta ka xariiqay in ugu yaraan diyaaradda J35 ay tijaabadeeda dhamaystirtay maalintii guusha ee rigada weyn ee ciidan lagu qabtay magaalada Beijing 3 bishan September maadaama iminka uu Shiinuhu ku guuleystay inuu saddex diyaaradood oo kala nooc ah oo uu isagu waliba farsameeyay uu ka wada gano garoonka sare ee kooban ee markabkan Fujian ay taasi ka dhigan tahay in markabkani uu qarka u saaran yahay in toos loo howlgeliyo tan waxay ka dhigan tahay in markabka Fujian uu yeeshay laan cigaaleedka danabaysan taasoo u taagan xal kale oo uu Shiinuhu ka gaaray horumarinta maraakiibta diyaaradaha xambaara iyo guul weyn oo ku wajahan dib-u-qaabeynta ciidanka badda ay warbixintu sheegtay markabkan ayaa la sheegay inuu horaanba ku guuleystay tijaabo 100 maalmood ah oo uu ku sameeyay meelo kala duwan markabka Fujian ayaana ka caaminaya awoodda dhinaca maraakiibta diyaaradaha xambaara ee sii kobcaysa siina kordhaysa ee dalkaasi Shiinaha oo doonaya inuu ku biiro kabaweynta adduunka tir ahaan iyo tay ahaanba kadib Liaoning oo la howlgeliyay 2012 Shandong oo la howlgeliyay 2019 balse walow Shandong uu sidoo kale yahay markab lagu dhisay dalkaasi Shiinaha Fujian waxa uu kaga duwan yahay inuu yahay markabkii ugu horeeyay ee diyaaradaha xambaara oo sida u ballaaran oo gabi ahaanba uu dhiso dalka Shiinuhu waxa inta dheer in Fujian uu yahay markabka imika dunida ugu weyn ee dagaal ee adeegsada matooro ku shaqeeya shidaalka caadiga ah haddii si kale loo yiraahdana aan awoodda nuclear-ka tamaraysanin maadaama uu barabixinayo ilaa 80,000 oo tan oo biyo ah Fujian ayaana waxa ku xiran saddex laan cigaaleed oo danabaysan oo kala duwan taasoo dabcan ka gedisan farsamooyinka hore loo adeegsan jiray ee ah uumiga la cadaadiyay waxa loo yaqaano steam catapults oo cilado badan laga kulmo waana markabka labaad ee qura ee dunida dul saaran maanta ee adeegsada hanaankan marka laga soo tago markabka ugu horeeya dabaqada loo yaqaano USS Gerald Ford class oo Mareykanku doonayo inuu ku bedelo dabaqadii ka horeysay ee Nimitz class loo yaqaanay maraakiibta kale ee dabaqadan ku jira ee imika dhismuhu ku socdo waa USS John F Kennedy oo dhismihiisu socdo oo laga wado in la howlgeliyo 2027 USS Enterprise oo howlgelaya 2030 iyo kuwa kale ee kasii dambeeya ee USS Doris Miller USS William J Clinton iyo ugu dambeyn USS George W Bush walow la doonayo
in dabaqadan la gaarsiiyo ilaa 10 markab. haddii aan soo laabano markabkan Fujian ayaa hawshiisa la bilaabay bishii June 17keedii 2022 iyadoo ilaa waqtiga lagu dhisayay hoosada maraakiibta ee Jiangnan Shipyard ee magaalada Shanghai ee dalkaasi Shiinaha. waxaan in badda lagu tijaabiyay la bilaabay sanadkii tagay ee 2024 isagoo horaantii bishan ka dhex dusay marinka loo yaqaano Taiwan Strait ee kala qaybiya dhulweynaha Shiinaha iyo jasiiradda Taiwan maruu ku socday dhanka South China Sea. wax la aaminsan yahay inay tahay tijaabooyinkii ugu dambeeyay ka hor inta aan toos loogu wareejin ciidanka badda Shiinaha ee loo yaqaano Plan. waxaana uu helinayay 2 markab oo ah nooca loo yaqaano burburiyaasha ama destroyers. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV.